بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان برشوينتي Soomaaliyeed meel walba joogtaan waa idin salaamay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo cudurka babasiirka maxaa keena insha Allah taala waxaan rabaa inaan babasiirka wixii keeno daawooyinkiisi iyo qaabka la iskaga daaweeyo inaan idin sharaxaad yar babasiirka wuxuu keenaa dadka cuncun fara badan walwal laakiin dadka qaar ma jeclo inay sheegaan in qofkan inuu babasiir leeyahay in kale babasiirka wuxuu leeyahay noocyo kala duwan koow babasiirka kan banaanka iyo externalka ah midka externalka noocyada externalka gudaha iyo agagaarka ku dhaco qofka wuxuu dareemaa xilliyada saxarada misana dhucusha ay jirto midka labaad babasiirka gudaha ku dhaco kan gudaha ku dhaco ama internalka kan ku dhaco asagana waxa lagu yiraahdaa afka qarad rectum marka noocaas qofka ma dareema kartid ama ma arki kartid hadii uu imaamin dhiigbax qofka hadii uu ku imaanin dhiigbax inta badan xanuunada badan madama ay ku lug leeyihiin neerfaha shisheeya ama neerfaha gudaha ku yeelo oo ku lug leeyahay mararka qaar waxa laga yaabaa in babasiirkaas uu qabto ama meesha uu ka soo baxay oo xidid ku yeelo xididkaasna uu neerfo yahay marka suurtagal ma noqonayso qofka inuu dareemo inuu babasiir leeyahay because wuxuu ka yeelaa internalka marka internalka qofka wuxuu u keenaa koow qofka markuu uu fadhiisto wuxuu dareemaa xanuun badan qofka markuu saxaroodana dhiiga ka imaanayo calooshiisana way fadhidaa adeeg waaye saxaradii marna isbuucna jileec ay noqonaysaa isbuucna adeeg ay noqonaysaa taasida waxa lagu gartaa qofka babasiirka leh babasiirka hore inuusan imaanin ama calaamadahaas lagu garin qofka marka hore waxa lagu soo sheegaa waxa la dhahay gooriyaan ama wasaqda bakteeriyalka caloosha ku dhacdo marka insha Allah taala waxaan idin sheegi doonaa calaamadaha kale oo babasiirka lagu garto ama calaamadaha xanuunka koow xanuun iyo cuncun kadib markuu saxaroonayo inuu meesha cunto iyo markuu saxaroonayo xanuun badan uu dareemo oo saxarada meesha ay soo marwayso fadhiga qofku aad u dhibsado qofkiisaas uu fadhiyo dib badan oo kala kulmaayo fadhigaas cuncun agagaarka dabada afkiisa hore qofku wuxuu ka dareemaa cuncun fara badan dhiig soo raaca saxaradaada inuu qofka dhiigiisa soo raaca saxarada aydan taasiyada waxay tusaale iyo calaamadaha lagu karta babasiirka weeyaan dhiigbax hadii xididada uu ku fadhiyo ay dilaacaan qofku wuxuu dareemaa dhiigbax fara badan mararka qaarkood xididada babasiirka oo dabada ka soo muuqda macnaha babasiirkii oo gudaha u soo baxo qofku wuxuu ku leeyahay waxba gada iga soo baxay halka dabada hoose halkaas babasiirkii iyo wasaqdii soo raacay halkaas ay ku soo baxdo marka waxa jirta daawooyin badan oo lagu daaweeyo babasiirka horta marka hore babasiirka iyo wasaqda calooshaada ku jirta inay ka baxdo hadaa rabto waa inaad calooshaada bixisaa isbuuciiba 2 maalin ama 2 cisho inaad ka bixiso isbuuciiba in aad ku dadaashaa cunnada maaragtay wasaqda badan cunooyinka wasaqda badan oo calooshaada wasaqda ku yaree ku badanay inaad ka dadaashid waxa kale oo qofka uu keenaa oo ku dareemaa babasiirka dhibaatooyinka kale oo keena waxa kamid ah mararka qaar dhaqaatiirtu waxay yiraahdaan babasiirka wuxuu keenaa inuu hormoneska qofka uu dhameeyo ama gabdhaha wuxuu keenaa hadii ku sii weynaado uu ku bato inuu keeno isku furanka ama qof gabadha isku furan marka insha Allah taala sida fudud iskiga daaweyn karto waxa weeyaan insha Allah inaad daawooyinka aad qaadato looga talagalay babasiirka daawooyinka babasiirka looga tabariyo daawooyin badan ko kaniini waxa jirta caloosha lagu bixiyo laba waxa jirta boomaato oo loo isticmaalo oo xididadahaas isqabsadeen wasaqdaas gadaal dambe ka timaadey qarxinayaan kaniini waxa jirta antibacterial calooshaada looga talagalay insha Allah taala
kan waa kiniinigii saa u jeetaanba kan waa kiniinigii loogu talagalay inuu qofka calooshii wasaqdiisa ku jirto soo bixiyo kanna waa boomaatadii loogu talagalay qofkii inay qarxiso baabasiirka insha Allah ta'ala halkaas ayaan kusoo koobaya wixii jawaab iyo su'aalo qabteen halka comment baad noo reebi doontaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh